Asalaamu calaykum walaalkiin injineer Dhaqane oo had iyo jeer uga barateen soo jeedinta cilmiga tiknoolajiyadda iyo sheekooyinka iyo qisooyinka. Waxaan rabaa maanta inaan la wadaago casharadii taxanaha ahaa ee noo socday qeybtii WhatsApp-ka. Dad badan ayaa iga soo weydiiyey WhatsApp-ka su'aalo, saa darteed waxaan ugu talagalay dhowr cashar inaan WhatsApp-ka kusoo jeediyo oo aan u soo duubo. Su-aashii isbuucii hore waan idinkaga jawaabay sida button telefoonka looga furo, kajkana loogu xirto. Waxaa jira tricks badan oo ay leedahay shirkadda WhatsApp-ka ay kusoo dirtay WhatsApp-ka, balse bulshada inta badan aysan ka warqabin. Sidaa darteed ay ka yaqaanaan blog iyo in profile-ka wax la saarto iyo in message la diro. Laakiin intaas wuu ka ballaaran yahay. Waa program dhan oo shirkadda ay leedahay, sanad kastana lagu soo daro features cusub ama waxyaabo cusub. Hadda maanta waxaan rabaa inaan la wadaago haddii aad rabtid WhatsApp-ka inaad isticmaashid inta badanna markaa iska mashquul tahay, sidee baad WhatsApp call-ka dadka inaysan ku soo wicin, dhammaanba WhatsApp-ka inaan lagaa soo wicin, see u samayn kartaa WhatsApp-ka online dadku ku arkayaan, message-yada arkaya akhrinaya, sidee baad markaa iskaga joojin kartaa inuu soo waco. Tusaale, WhatsApp-kaaga tag, WhatsApp markaa saa u tagtid halkan saddexda dhibcood ku qoran tahay ku dhufo, kadib FM Nodeska ku dhufo, kadib Privacy and Security ku dhufo, xaggan u soco marka. Si halkan hoose u jeedid waxa ku qoran who can call me, yaa ku soo wici kara. Marka saa ugu dhufo, hadda maxaa ii saaran qof kasta ay soo wici karaa, xataa asagoo aan igu save garaysnayn. Marka hadduu lambarkayga soo helo ay soo wici karaa. Waxaa dhihi karaa my contact oo dadka igu jiraa. Waxaa sidoo kale oran karaa my contact, sidoo kale waxaa oran karaa contactiga ee soo wacaya marka laga reebo qof baa calaamadsanaysaa, qofkaas inuu ku soo wici meene, qofkaas kuma soo waca. Dhowr qof oo calaamadsanaysaa, dhowrka qof kuma soo wacaya, kumana soo wici karaa. Sidoo kale hoos baa ku dhufanaysaa select baa dhahaysa odaa dooranaya inta ku soo wacaysa, dhowr qof ay soo wici ka dhaleen direct. Halkan baad dooranaysaa ugu hooseyso meesha muhiimadda ka lehna halkaas nobody baa leedahay, qofna ima soo wacayo. Haddii aad nobody tiraahid, qof call-ka WhatsApp-ka kaa soo wici karaa ma jiro. Qof walba markuu is yiraahdo wac wuu iska jaraya. Saas ugu dhufanaysaa kadib waa ka laabanaysaa nobody buu leeyahay. Hadda qofna soo wici karaa ma jiro. WhatsApp-ku si walba aad online u tahay qofna kuma soo wici karo. Saa darteed macquulba ma aha in si yar oo fudud lagu soo waco. Saa darteed macquulba ma aha in lagu soo waco. Tusaale kale haddaan soo qaadano, sidee anigoo dadka oo dhan ba iskaga joojin oo aanan dhihin iga wada xir oo aan call-kaba iskaga xirin, sidee qof khaas ah aan call-kiisa iskaga joojin karaa. Waa ku dhufanaysaa qofkaas kale ugu koreeyaa tagaysaa, waa ku dhufanaysaa halkan, waa ku dhufanaysaa dhexda taabanaysaa custom privacy awal kuma jiri jirin, laakiin hadda waa lagu soo siyaadiyay. Featureska lagu soo daray ka mid ah custom privacy-gaas ku dhufanaysaa. Saad u jeedid waxyaabaha way tiro badan tahay, shaqooyin kala duwan bay qabtaan. Hide Bluetooth iyo kale waa kan ka qari markaa message akhriyo Bluetooth-ka tigta u soo baxda qofka inuu qofkan waa akhriyo yiraahdo ka qari, tan labaad ka qari. Laakiin muhiimaddan waxay tahay inaad halkan sidoo kale aad ku tiraahid hide payment qoraalka inaad qarisid, sidoo kale inaad ka qarisid recording iyo kale, inaad view size ka qarisid, sidoo kale message-yadii aan liido kale inaad ka qarisid, microphone-ka sidoo kale. Dhammaan waxyaabahaas oo dhan wuxuu leeyahay qofkii inaad ka qarisid. Tan kale waxay tahay call-ka aan kuu sheegay qofka inuu ku soo wici karin. Halkan hoose saa u jeedid no call baa leedahay baa tigtaa oo waxa ka dhigaysaa on. Adoon qofkii wax u baloogin oo sawiradii wixiisa u saaran yihiin message-ka kuu soo qori karaa haddana uusan ku soo wici karin. Haddaad hide contact name-ka ka qarin kardhayo magacaaga adigu meesha kugu qoran oo dee
marka gurubyada ama meesha laga arko kugu qoran baa ka qarin kardhaa. Taasi waa farsamo aysan dadka inta badan ogeyn. Marka inta badan waxyaabaha cajiibka weeyaan WhatsApp-ka lagu soo siyaadiyey. WhatsApp-ku intaan kaliya maaha, wuu badan yahay, waxyaabo badan baa lagu soo siyaadiyey. Haddaan tusaale ahaan soo qaato, waxaan rabaa khadka inaan isticmaalo, inaan WhatsApp-ka isticmaalana ma rabo. Facebook anigoo isticmaalaya, anoo meelaha kala galaya, anoo Google-hayga galaya, ama casharada iyo waxaas iska dhageysanaya, haddana inaad WhatsApp-ka iska xidhid oo gebigiisba message kuu soo dhicin aadan message u dirin, aan lagu soo wicin. Si yar oo fudud baad tagaysaa, taa xoogaa dadku waa yaqaanaan. Halkaa kore ayaamihii dambe la soo siyaadiyey baa faleedaasaas wax ka dhigaysa active. Haddii sidaa u jeedid, WhatsApp-kaaga message kuma soo dhacayo, wax qofoo ku soo wici karaa ma jiro, inaa online tahay in kale lama oga, dee waaba ka maqan tahay, adoo offline ay u dhigan tahay. Marka waxaan soo wadaa casharo badan sidoo kale qaybo kala duwana. Fadlan haddii aadan hore noogu soo biir, haddii aad nagu soo biirana la wadaag asxaabtaada, share dheh. Waa mahadsantahay. Wabillahi tawfiiq.